السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. haddii arlada laga waayo wax cadaalad ah haddaba insaanka joogitaankiisu ma lahaanayo wax qiimo ah. saaxiibkaaga dhabta oo midka kugula xisaabtamayo qaladaada ee ma aan saaxiib midka kugu qorxiyo qaladyadaada si uu kuu raalgeliyo. halkii daqiiqad uu xanuun ku hayo waxay la mid tahay saacad, halkii saacad aad macaansanaysa shayna waxay kula mid tahay daqiiqad. haddaad se iibsato waxaadna u baahnayn waxaad iska iibisay waxaad u baahnayd. aad ayay u sahlantahay inay ku ixtiraamaan dadka, balse aad ayay u adag tahay inaad ixtiraamto nafsadaada. ha ku noolaan weligaa la weji, maxaa yeelay ugu dambeyn waxaad dhimanaysaa adigoo weji la'aan ah. taajirka waqtigu doono ayuu cunaa cunadiisa, balse faqiirka waxa uu cunaa marka uu helo. taasi waa farqiga u dhexeeya taajirnimada iyo faqrinimada. ha ka yeelin qalbigaaga albaabo furooyin badan leh oo aad loo ilaaliyo. waxaa kugu filan oo ku dhowraya hal furo oo wanaagsan oo aad ku xirato dhammaan mugdiyada ahaaday caalamka. hal shumac ma suurtagalayo inuu ifiyo. qofkii dembi gala isagoo qoslaya waxa uu naarta gala isagoo oynaya. kuwa ku jeedjeesa dhaawacyada dadka kuwaasi ma garanayaan waxa uu yahay xanuunka. mase jiro wax ka awood badan faraska indhaha la. saaxiibayaal, maanta muuqaalkiina halka ayuu ku egyahay. intayna ku kulmi doono tani muuqaalkiina xiga. في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله.